kulankan oo lagu dhex qabtay masjidka ugu weyn dalkan Britain ee ku yaala bartamaha magaalada London noqonaya kii ugu horeeyay isla markaana ugu ballaarnaa ebed lagu qabto magaalada London iyadoo waliba bilowgiisii ugu horeeyay ay ka qayb qaateen culimo muuq iyo magacba ku leh dalka Soomaaliya tusaale ahaan Sheekh Umal oo ka yimid dalka Kenya Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo ka yimid dalka Norway iyo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo isna ka yimid magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyo qaar kale oo badan السلام عليكم شيخ إبراهيم بافي الفرسل وجعلنا لها مدام أي تايمر كوجه رئيسي إنجليز كاتمادين إسلامر كان مؤتمر كان أتكسو قيب قادة مانتا كورن سوركتا دتك الصومالية قربها كنا فايدين تولك بقوليها والله وحال السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام noloshoodu badii mu'tamaraadkan bay ku tiirsan tahay taqriiban ilaa waqtigii ay soo galeen meelahan ilaa hadda mu'tamaraadkaas iyo culimada u imaanaysa iyo cajaladaha ka baxaya iyo diin ahaan iyo adduun ahaan waxa isleeyahay taan bay ku tiirsan yihiin dadweynaha u fara badan ayaa labadii cisho kulankan uu socday ka qayb qaadanayeen oo isugu jiray rag iyo dumarba ترين ما كسر قبل شيء لبدي عيش هالكن مؤتمر كنت سعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحلده كرا لبدي بري هذا المؤتمر كوني دتكو معلنتي بلا كوني شنبغل كوني لحب غلقف عموما صدح كل لا صدح كوني شنبغل غلقف أي لبدي مالمود كسر قبل. يلو فرصة دنا جالية الصومالية وفضل ذي دلنا مساجد UK ولا يقان أميك oo kulankan oo kale ballan qaadeen inay sanad walba ay culimada diinka u keenaan magaalada London iyo nawaaxigeeda amika waxyaabay loo asaasay waxa kamid aha inaynu dacwada midayno iyo juhuudda masaajiddu ay bixinayaan oo meel la isugu keeno hawsha sanadkan muddo 6 bilood aanu qabanqaabadiisa ku jirnay waa kii u horeeyay khalad waa laga yaabaa inuu yimaado laakiin sanada dambe insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa mid ka badan kan oo meel waliba masaajidkana hadda kan UK u weyna meel ka weyn insha Allah inaan ijaarno oo muxaadaraad kuwan ka weyn iyo culimad ka badan baan sanadka dambana keenay insha Allah ta'ala shuyuuqdan ayaa mawduucyada ay soo qaateen kala gadisnaa isla markaana faa'iido weyn u lahaa mujtamaca qurba joogta iyo kuwa dalka ku suganba Sheekh Mustafa waxa uu ka hadlay mukhadaraadka sida qaadka sigaarka iyo shiishada dhibta weyn ay ku hayaan bulshada Soomaalida waxaan isleeyahay qaad markaynu dhaahno Soomaali qofka ahi mala waa walaga experienced yani waa qof si fiican u yaqaan qaad wuxuu galo iyo wuxuu gudaba qaadka waxa la saaro dhami way dheereeyaan sababta ma garanaysan di dameer la saaro di awr la saaro di gaadh la saaro wax kasto la saaro waa la eriyayaan waxa weeyaan maadadan baa la ilaalinayaa inta aanay isbedelin in dadka hore loo gaarsiiyo maadada tan inta aan isbedelku ku dhicin in dadkii cunaya ay hore u gaadho أوكر عوالي وحو كمد يهي dadka sida aadka ula dagaalamo qaadka muddo 6 sano ka badan ayuu wuxuu u doodayay in qaadka la joojiyo maanta Sheekh Mustafa wuxuu ka hadlay dabcan arin cajiib oo dadku dhigayda aan hore u maqal adiga meesha aad fadhigay waxyaabahan tilmaanta uu bixiyay iyo qaadka waxyaabaha laga helo ma wax kugu cusub ay ayaan musaraan taqaanadiga runtii Sheekh Mustafa markuu sharaxayay waan garab fadhiyay waxaad moodaa astaabaha iyo sababaha iyo sida dadku u dhaqmaan waxaad moodaa inuu igu dhex jiray wixii aan waagaas dareemi jiray iyo dhaqankayga unbuu ka hadlayay maasha Allah ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro codkiisu meel dheer buu gaaray aan aaminsanahay waana wax badan oo casharo laga qaadan karo ee meesha ku jirta sigaarka dhulkiisa la cabayo waxa ka mid ah waxyaabo ku jira ammonia ammoniyadu waa waxyaabaha musqusha lagu maydho waa detergent musqulaha lagu maydho nuugista la nuuga shiishadu inay ka khatarsan tahay sigaar cabista caadiga ah dadka shiishada caba waxay isleeyihiin waad ka khatar yartay kuwa sigaarka cabaya kama khatar yara oo ka khatar badan yahay dhowr sababood baa uga khatar badan yahay dosage-kiisa dhan isagoo horta marba wada qaataa ka sigaarka cabaya waxa laga yaabaa inuu waqti u dhexdhexaysiiyo laakiin kan hal saac buu fadhinayaa halkaa saac oo dhan qiiq buu cabayaa horta shiishada iyo sigaarka waxa qura u dhaxeeyaan oran kare muuqda waa filtrationka waa qaabka loo filter gareeyay labada sigaarka rabuush yar baa la dhex mariyaa oo filtera tanna biyaa la dhex mariyaa labaduba waxay filter gareeyaan oo badani ma jiro waxa ugu badan ee labaduba ay filter gareeyaan waxa weeyaan in daamurka ka mid ah
waa sababtay biyaha shiishaduna yalowga u noqdaan sigaarka dabadiisuna ay yalow u noqoto ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiina ha dilina waa qatl batii waa dil yara Sheekh Umar ayaa isna la faguray qabyaaladda sida xun loo adeegsaday isagoo sheegay in qabiilku uu faa'iido u yahay in la isku garto kaliya qaraabadaada inaad xidhiidhisa ay waajibka kugu tahay waxaad ku garan kartaa oo nasabka inaad garato dadku siday kugu kala sokeeyaan waxa la isku garan oo lacagta la isugu diri oo shirkaduhu wax ku siin oo lagu raadin ruuxii waa qabiil nasabka in la barto oo abtirka la barto oo dadku siday ku kala xigaan la barto oo intay ku kala jiraan la barto waa arin nabigu amray salawaatu rabbi wasalaamu calayh وإلا هذو نصب كلهم هوريرتا يددا يولاشا يجونا وذلك أوتهاي بعد إلى هيد إن أي غير كل نقط هاو القرن لمدي هو أو المجعي هو أو الدولة دي أو الدب لمدي أو احترام كي أدوك اللي نوها يأو صميم والمين أن نقولون محوها يقحوتي أي بقات صميم أنه ومحاد اللي نوها كبر المحيط هل كاسا إلى بضي كوي لباتنكي سنة ودلك وبربرسنا ayaa si qalad loo isticmaalay oo waliba iminka la sii casriyeeyay oo shaarar cusub loo soo geliyay sida uu sheekhuba sheegay waxa la sameystay wax la yiraahdo jaaliyado waa magac reer magaalo qabiilkiiba waxooga shaati kale loo geliyay waxa la yiraahdaa jaaliyado war waa jaaliyada hadhigina waa reer hebel dhaxqar Allah disiye warreeh hebel saasay ugu quruxsanta jaaliyado xafiisyo leh barnaamij ka shaqeeya kobolaysi warkaalada isu yimaada wadamada qaarkood dowladihii loo yimid baa waxay ka shaqeynayaan leeyihiin war hal af loogu imaado idinkoo Soomaaliya loo imaado ma waxaas haddaan Soomaali noqonayna waa horaan noqon lahayn baa loogeeyay waa horaan Soomaali noqon lahayn ilaahay baa ku dhaariyay سو حديث النبي يقول الرجل صلوات ربي وسلام عليه أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدئ الخرء بأنفه صلوات ربي وسلام عليه ومد باب كاد شوف بالذين الله هاي تاريخان من تدب نقطان والتاريخ يدب آخرنا وضل صوماليا كقالسا وضل الصوماليا كقالسا بقبيلة يقبليسكم قعنتك بحيان kulan isku imaatin diimeedkan ayaa waxa uu ahaa kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca magaalada London iyadoo ay soo qaban qaabiyeen ururka dalladda ee AMIC ama ay ku bahoobeen masaajidda ku dhisan dalkan Britain haddaba kulankan ayaa waxa ka qayb qaadanayay sida la sheegay in ka badan 1500 oo qof oo isaga kala yimid magaalada London iyo waliba gobolada dalka Britain iyadoo culimooyin caan ah ay ka qayb qaateen maalmihii ay socdeen muxaadarooyinka halkan ka dhacayay waxaana lagu soo gabagabeeyay isla masjidkan weyn ee Regent's Park ku yaala bartamaha magaalada London. Ibrahim Umar Baafe, wararka Universal, London.